xisbiga ka wuxuu qaadacay doorashadii xisbinimada ku noqday maxamuud jaamac warfaa gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiyana wuxuu dacwad ka dhanay maxamed kaahin u gudbiyey guddiga ansixinta ururada iyo asxaabta siyaasadda Somalilan qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku daawan doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo warkeena oo aad ka daawanaysaan Golle Media fadlan haddii halkan aad soo gaadho waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe nala dhaafin mahadsanid daawade xisbiga mucaaridka ee kaha ayaa si qallafsan uga hor yimid go'aankii ay guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ku soo saareen diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland maalinnimadii shalay ahayd ka waxa uu sheegay inuu xiriirkii wada shaqeyneed uu jaray guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland oo ku eedeeyay inay go'aan hal dhinac soo saareen ka wuxuu sheegay inay iyagu doonayaan in diiwaangelin cusub la sameeyo lagana guuro tii hore waxa uu sheegay in xisbiga ka in guddiga doorashooyinka Somaliland ay toodii u raaceen xisbiga muxaafidka ee wadani iyo sidoo kale xisbiga kulmiye oo hadda isagu taabacsan siyaasadda xisbiga wadani waxa uu sheegay ka in wixii uu ku soo baxay ay ahaayeen xaaraan waa sida uu hadalka u dhigay laakiin hadda la doonayo in la qabto diiwaangelin cusub bulshada Somaliland ayaa kala hortimid diidmo qaawan xisbiga ka oo ay ku eedeeyeen inuu baal marayo shuruucda iyo sharciga qaranka Somaliland isla markaana uu doonayo in diiwaangelin isagu og yahay la qabto dadku waxa ay sheegeen inuu ka isagu dabada ka riixayo inay dib u dhacdo doorashadu isla markaana aanu diyaar waqtigan u ahayn in doorasho dalka ka dhacdo daneeyaasha doorashooyinka Somaliland oo iyaguna dhankooda hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka guddiga doorashooyinka Somaliland isla markaana aanay guddiga doorashooyinka dhag u siinin go'aanka ka soo yeedhay xisbiga mucaaridka ee ka daneeyaasha doorashadu waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la ixtiraamo dastuurka iyo qawaaniinta dalka u taala isla markaana sida caadiga ahayd lagu qabto 31 bisha shanaad 2026 doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada waxa ay sheegeen in haddii doorashadaasi ay dib u dhacdo inay ka mas'uuliyadeeda qaadi doonto arrimaha doorashada laakiinse garyaqaano iyo sidoo kale dad kale oo hadlay ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka qaranku ay soo saareen jadwal aanay hubin inuu doorashadu ku dhici doonto iyo in kale waxa ay sheegeen inaanay miisaaniyaddii qaranka iyo dhawaan ay sixiyeen baarlamaanka Somaliland aan haba yaraatee lagu soo darin kharashaadkii doorashada loogu talagalay laakiin guddiga doorashooyinka ayay ku eedeeyeen inay iyagu iska dhagamarinayaan waxay og yihiin oo aynaanay doorasho waqtigeeda ku dhacayn maadaama aanay miisaaniyadiiba ku jirin kharashaadkii doorashada waxa ay sheegeen ma komishanka ayaa og bay yidhaahdeen lacagta lagu qabanayo oo anagu ma ogin maadaama aan miisaaniyadii ama doorasho miisaaniyadeedkii 2026 aanay kuba cadayn kharashaadka doorashada lagu gali lahaa waa hagaaga haddaynu daawadayaal intaasi kaga nimaadno xisbiga ka iyo diidmadii uu kala hor yimid iyo wixii ay dadku ka yidhaahdeen iminkana waxaynu eegi doonaa xisbiga kulmiye oo ay weli dul hooganayaan carqaladihii ka dhashay xilka xayuubintii maxamed kaahin ku sameeyey gudoomiyihii golaha dhexe maxamuud jaamac warfaa waa gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye maanta guddiga ururada iyo kala saarista asxaabta siyaasadda Somaliland wuxuu u gudbiyey dacwad ka dhanay maxamed kaahin axmed waxa uu sheegay inuu maxamed kaahin ku dhaqaaqay sharci jabin isla markaana uu isku dayay gudoomiye lagu doortay shirweyne inuu xilka ka qaado waxa uu sheegay maxamuud jaamac warfaa amba uu warkiisa ku sheegay in wixii mas'uuliyadda ee halkaas ka dhashay uu maxamed kaahin dusha ku qaadanayo sharcigana uu la tiigsan doono guddiga diiwaangelinta iyo kala saarista asxaabta siyaasadda Somaliland ayaa hore xisbiga kulmiye ugu soo celiyay
jadwalka ama waqtiga la qabanayo shirweynaha xisbiga kulmiye oo lagu eedeeyay in dib u dhac sharciga waafaqsanayn lagu sameeyay iyadoo kulmiye muddo kooban loogu qabtay inuu si sharciga waafaqsan uu ku qabto shirweynaha xisbiga kulmiye iyo ka golaha dhexe. maxamed kaahin oo ka cararaya in xilka laga xayuubiyo ayaa dib u riday waqtiga la qaban lahaa shirweynaha xisbiga kulmiye. dhanka kale waxa taagan caqabada ka dhalatay arrimaha sida goonida uga dhex taagan maxamed kaahin iyo madaxweyne hore muuse biixi cabdi oo khilaafaad xoog leh uu soo kala dhex galay. kaahin iyo biixi oo muddo ka badan 40 sannadood ahaa saaxiibo ayaa ku kala tegay dhanka siyaasadda kadib markii madaxweyne hore muuse biixi cabdi uu soo jeediyay in xisbiga kulmiye lagu wareejiyo deegaano cusub iyo shakhsiyaad siyaasadda iyo xisbiga kulmiye wax ka bedeli kara. muuse biixi cabdi waxa uu soo jeediyay in sidoo kale shirweynaha waqtigiisa lagu qabto. maxamed kaahin ayaa eedayn dusha uga tuuray muuse biixi cabdi isagoo sheegay inaanu xisbigu lahayn 2 gudoomiye laakiinse uu leeyahay hal gudoomiye, taa oo keentay inuu xisbigu u kala jabo 2 garab oo waaweyn. sidoo kale cilaaqaadkii xumaaday ee u dhaxeeyay muuse biixi cabdi iyo maxamed kaahin axmed wuxuu saameyn ku yeeshay siyaasadda xisbiga kulmiye gudaheeda iyadoo inta ugu badani ay raacday garabka uu hogaaminayo muuse biixi cabdi, qaar kalena ay dhexdhexaad ka noqdeen halka in yar oo ay isku deegaan yihiin maxamed kaahinna ay maxamed kaahin la safatay. maxamed kaahin axmed gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa waqtigan ku jira wax iska celin halka Soomaalana uu dagaal kale oo deegaan uu isaguna ku jiro. waa tahay daawadayaashada qiimaha iyo xushmada mudanow intaas waxa ku dhan war wixii aanu idiin haynay. fadlan mar labaad saaxiib waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe noo tiraahdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.